dadka qaba aragtida Almaaniyada astaamileyn astaamahooda waxa kamid ah inay ka dheeraadaan nadaafada oo aanay meeran adiga cabdi ducay goorad meerto goorma ku dambeysay markii kala qabsatay ma waxaad diirkayga saasiri mise aragayga guud iyo habkaan u noolahayo in caynkaan u noolahay ubaad nadaafada ku tilmaamsan manaagoodiiba mise wax weyn ragii qabay qofka sideed ku ogaan kartaa waxa tiri Almaani baan ahay Almaani weyn baan ahay baa tiri salaada ma tukataa waa arin ma dhilaysataa ugu dhadhaata ma tukataa baan ku ma jaa arin ilaahay uu leeyahay ugama jawaabo xataa aabahay aniga qofka naartay gelinaya ama jannada gelinaya su'aasha hay soo weydiyo wax adiga muslimaan tahay ama waan tukadaa ama ma tukado labada mid okay ma xabaashi baa ku jiraayo ma diinku ma nabiga ku bad weydiinaysaa daawadayaal waxa hadda barbarkayga taagan injineer Cabdi Duco oo kamid ah dadka sida weyn looga garanayo Soomaaliland oo maalin dhaweyd sheegay inuu isagu kamid yahay dadka qaba aragtida Almaaniyada Cabdi Duco soo dhawow maalin dhaweyd waxa tir waxaan hay Almaani bal arinta ka hor sida aad u tirweeyano ereyga Almaaniyada dadka la howlo balqa la howlo taana ba sheegto kula imkaan ugu celinaya Almaaniyada falillahi alhamd marka dad muslimiina bay nahay diinta islaamka bay haysanaa Almaaniyadu waa aragti qabta in la kala saaro diinta iyo nolosha ama diinta iyo dawladnimada marka ma waxaad qabtaa in la kala saaro diinta iyo nolosha iyo diinta iyo dawladnimada diinta iyo nolosha diinta iyo dawladnimada waxa aad isku dhaxqasayso maaha diinta iyo dawladnimada labay kala yihiin waa laba maxaad u kala saar marka maxaad u kala saaraysaa diinta iyo dawladnimada isku jiraba wax isku jiraba ma aha diinta iyo dawladnimada marka haddii aanay dawladdu bayso ahayn diinta oo dawladdu aanay diintii dadka ku dhaqayn sidee dawladnimadu u jiraysaa saas dawladdu waa arrin adduunyo oo dad meel isku yimi ay ku wada tashadaan waxay ka bilaabataa dawladnimadu magaaleynta dadku markii ay magaalada isugu yimaadeen dawladnimadu waxay ahayd iyo diintuba waa laba waxoo ka horreeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintu dee waa wax la soo bilaabmay jiritaanka aadamaha dawladnimaduna waa ilbaxnimooyinka uu bini'aadanku gaadhay marka waxaad qabtaa in meel la iska dhigo diinteena islaamka oo dawladdu ay ku shaqayso aragti aan ku saxo inagu waxaanu nahay dad wada muslima seeska guriga sees baa laydhaha uu ka taagan yahay cidima aragto laakiin waa waxa gurigaa dhan haya fooqaa dhan sees baa haya isirka dhaqanka ama kastamariga hiddaha dadku leeyahayn diinta ay aaminsan yihiin waa waxa ay ka kacaan xeerarkooda waxa laga samaynayo laakiin taasi ma keenayso eeg ma aha inaad tiraahdo dastuurka iyo qur-aanku waa isku mid diinta iyo dawladdu waa isku mid war diintu waa gaaro rabbu samaawaati wal ardi baa soo dejiyey dawladduna waa arrin ay ku wada qabsadaan bini'aadanka meel isugu yimi bini'aadankaasi waxay noqon karaan wada muslim gaalo iyo muslim wada gaal arrimahaaga adduunyo marka antum aclamu biumuuri dunyaakum waxaad qabtaa in la kala saaro diinta iyo dawladnimada isku midba ma ahaba waxaan qabaaba dadka aaminsan inay isku mid yihiin inay ka mid tahay problemada ugu waaweyn ee soomaalida haysta ee dunidan keyrkeed ka hadhee muslimku u badan yahay ma jiro caalamul islaami iyo caalamu gaalo waxa la yidhahdee bini'aadanku sibay u kala badan yihin sibay adduunyada ugu kala badan yihin markaa waxaan qabaa laba waxoon isku mid ahayn way ma dadka waxaad u sharaxdaa Cabdi Ducay marka diinta halka la iska dhigo ee dawladnimadu ay aragti ku shaqayso ma waxaad leedahay waxa lagu shaqeynaya dimuqraadi ee diin lagu shaqeyn maayo madaxweyne Muuse Biixi halka ku jira ee go'aaniga kule waxa weyn la kadeedanay ayaa wuxuu yiraahdaa dimuqraadiyadu waa dhaqan gaaleed oo waa sidano hadda waa tan lagu doortay waa tuu ku soo leeyay Oldoon iyo Muuse Biixi waxa weyn isku ideology mana qaldanada weligeedba intuu fagaalada isku yimid iskama doodin qof uu baa qol intuu isku soo xiro dadka cabeeya critical thinking iyo fagaare intuu bulshada la isugu keeno waxeedu ay ka doodaan
kuwa baarlamanka imika isfeerfeeraya ee qaar qaylinayaan ee qaarba cagafyada yihiin qaar maskax yihiin ayaa ugu dhow malaa waxay noo tuusiyaa baarlamanka dadka u sameeya kritikaaltiinka ama naqdinta waxa leeyahay dimuqraadiyadda ha lagu shaqeeyo oo diinta meel ha la iska dhigo diinta sideebaad isaga dhigi kartaa soo qof muslima ma tiid diinta waabaad aaminsantahay galle ha la kala saaro diinta iyo dowladnimada ukaayi isku mid ma aha eeg waxaa kaa qaldanba inaad labadan isku mid ka dhigto diintu waa rabu samaawaati wal ardi baa soo dejiyey diinta islaamku nebi maxamed kama bilaabanto calayhi salaatu wasalaam laakiin nebi maxamed waa khaatamul ambiyaai walmursaliin halka dowladnimada nebiyada ilaahay soo diray nebiyada qaar baa jabhad ahaa oo daalim la dagaalamayey nebi muuse ahaa calayhi salaam nebiyada qaar baa dowlad gaala la shaqaynayey nebi yuusuf buu ahaa waa kaya ilaahay markuu ka hadlayo suuradda yuusuf maa kaana yaakudu akhaahu fii diini ilmelik marka alaabta loo gelinayo ilmaha odhanaya markaas ku soo wadaduwo saddex wax intaynu kala saarayno aynu ogaanayno ma inaanay isku mid ahayn balse ay isku yihiin wax kala duwan isku xidhnaantooda iyo kala duwanaantooduna ay ku xidhan tahay kolba bulshada halkaa degan waa abtirsiinta ama qabiilka waa iimaanka uu qofku rumaysan yahay inagu wada muslim baynahay falilah alxamdu iyo arrinkooda adduunyo siday isugu keeni karayaan waay dadka qaba aragtida calmaaniyadda astaamay leeyihin astaamahooda waxaa ka mid a inay ka dheeraadaan nadaafadda oo aanay meedhan adigoo cabdi ducey gooraad meedhato goorma ku dambaysa eeg waxyaabaha ugu waaweyne mataqaanaa marka dood la galo hargeysa bartankeedii baan taaganay soo maa waxyaabaha ugu waaweyne ambiyada sifooyinkooda ka mida waxaa ka mid a lagu diro waalida haddaad aragto qof iyadoo qofkan kale aragti qaba qof ku duraayo waalida abuurtiisa caynka aanu eegahayn kalaanta su-aashaa markaad iminka weydiinayso ma kilikaladeedaad qabsatay ma waxaad diirkayga saa tidhi mise araggayga guud iyo habkaan u noolahay iyo caynkaan u noolahay unbaad nadaafadda ku tilmaamaysaa waxa weeyaan aragtiyaha ay qabaan dadka calmaaniyadda aaminsan inay nadaafadda ay ka dheeraadaan oo aanay meedhan miyaa la urursadaan dadka may urursadaan nadaafadda may urursadaan mise way juugjuugaan manaagahoodiiba mise waxa weeyaan raggii qabay qofka sideed ku ogaan kartaa ee qofka waxbaad ka doodaysaan dadkan mataqaanaa su-aal kale waay su-aal kale salaadda ma tukataa oo majaladaad gelaysa su-aal ma tukataa salaadda jame maxaad ka macaashaysaa waxaad tiri calmaani baan ahay calmaani weyn baan ahay baad tiri salaadda ma tukataa waa arrin ma dhilaysataa igu dhada haatan ma tukataa baan ku ma jee arrin ilaahay uu nagu leeyahay ugama jawaabo xataa aabbahay cabdi duco bal maanta dad muslimiin ayna daawanaya su-aashaa ka jawaabo cabdi duco salaadda ma tukadaa aniga qofka naartay gelinaya ama jannaday gelinaya su-aashaa hay soo weydiiyo wax adiga muslimaan tahay ama waan tukadaa ama ma tukado labadaa mid okay ma xabaashi baa ku jiraayo maa diinuka maa nebiyuka baad weydiinaysaa maxay tahay sababtaad ii weydiinayso salaadda maxaa arrimeena waxaad tiri qof calmaaniya baan ahaye bal maanta su-aashaa dadku ha ogaadaani ma tukataa mise ma tukati kaagama jawaabayo sababtoo ah wax allo wax faa'iido adduunyada adiga ay ku leedahay ummadda ay u leedahay ma jirto nimanka aniga ku sheegayo nebiyadu markay soo baxaan qur-aanka akhri dood marka la galo waxa ugu weynay yidhaahdaa waxa weeya inay ku duraan qofka wuu waalan yahay waa sidan stateka marka dadka maskaxdooda la dilo la gaarsiiyo ayay ka mid tahay qofka diintiisa muxuu ahaye salaadiisa cibaadadiisa wixii ilaahay ka dhexeeyey marka inaad tukato iyo inaanad tukan ogama jawaabaysa kaagama jawaabayo waxaa faa'iido kugu jirtaanan garanayn xabaasha ii soo dhex fadhiiso sidii wadaadado malag ismadooda waxaad tiraa maa diinuka maa nebiyuka man rabbuka